xog muhiim ah dowladda Soomaaliya ayaa arrimaha xajka waxa ay ka soo saartay war farxad badan warkaasoo ah in xajkii la dhimay oo laga dhigay 4543 sanadkan 2026 kuna beegan 1447 sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay munaasabada daahfurka xajka ayaa waxa uu sheegay in arrimaha xajka sanadkan wax badan ay xukuumaddiisu ka qabatay haddaba aynu idin kala baxno hadalka ra'iisul wasaaraha waxyaabaha aadka loogu baahan yahay waxaa ka mid ah wacyigelinta wasaaradda waxaa waajibka oon ka rabnaa tirada bictada dadka tegaya ee loogu talagalay culimada iyo dhakhaatiirta oo keli ah waa inay ku baxaan cid kale waa inay siiyaan culimada iyo dhakhaatiirta dadka u adeegaya waxaa kale oon jeclaan lahayn inaynu wasaaradda culimaduna ay kala shaqeeyaan baarlamaanka iyo guddiguna waa nala joogtaa xildhibaanada in lagala shaqeeyo shirkadaheenuna inay ka shaqeeyaan dadka intaynan xajka aadin in la baro axkaamta xajka qofku waa inuu barto oo loo sheego waa adigoo salaad tukanayo oo kale salaad waa imisa ragcadood haye maxay tahay shuruudeedu maxay tahay arkaanteedu maxay tahay abcaadeedu maxay tahay yani salaada waa kan dadkii sidaas ay u garanayaan waxaan u baahannahay in salaadu maxay ku burtaa dadku ay garanayaan marka waa inay garanayaan xajku muxuu ku buraa waa inay garanayaan shuruudda xajku maxay tahay arkaantiisu maxay tahay waajibaadkiisu maxay tahay qofku inuu garanayo waaye laakiin ayagoo xaj ku jiro الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال يا أركي سالبة صومالية وسعيني صوت دقالة ميسي قتل جاد اسكو دقل marka waxaynu u baahannahay inaan dadkeena barno mar waxaa jira waxyaabaha oo la soo maray dadkii ka shaqeynayay shirkadii u shaqeynayay dadkii haystay ayaa laftooda waxaa la geliyay imtixaan marka waxaa la weydiiyey qofka aad qaadaysa halka ka qaadayso ilaa uu xaj kasoo gudanayo tallaabooyinka uu qaadaya sheeg qofkii marka dad badan oon culimo ahayn baa ku jiray oo ani maxaa iga galay anugu shirkad baan ahay waan u shaqeynaya maxaa xajkiisa anu meeshan aan ka qaadaya waa la soo celinaya marka maxaa iga galay wuxuu samaynayo marka kumaad guuraysan maxaa jira waad ku dhacday marka nin oday oo aada u fiican oo runtii muddo la soo shaqeynayay ayaa mar la ii keenay oo dood adag qaba arrintaas ka qaba inuu ku dhacay marka wuxuu diidan yahay wuxuu leeyahay sidee wax aniga maxaa iga quseeya maxaa lii weydiinaya marka uu ii sheegay wuxuu dhahay war aniga shirkad baan leeyahay qofka waan u adeegaa maxaa aniga iga quseeya arkaantiisa sheegayo shuruuddiisa sheegayo maxaa aniga quseeya marka waxaan waxaad aqooni baad ka shaqaysataa adu marka waxaadan aqooni baad ka shaqaysataa horta kolka hore bal adigu baro kadibna dee qofkii u adeeg oo qofkii ha shaqeeyo markaa ka shaqayso laakiin adiga waxiiba garanaynin sidaad uga shaqaynaysaa waxaad ka shaqaynaysaa waa rukni min arkaan islaam inuu yahay soo ma ogid qofkaana waxbaba aqoonin ee geeliisa ka yimid ee geeliisa soo gatay aan waxba ka aqoonin waxan laakiin og xajku inuu waajib ku yahay ee meesha yimid seed ugu talagashay waxaan u baahannahay marka sida dowladaha qaar ay sameeyaan inaynu dadkeenna inay certificate qaataan yacni macaahidda islaamiga ah masaajidda santarada islaamiga ah inay qofku haddii soomaalidan lagu wacyigeliyo oo qofku haddaad xaj aadayso intay culimadu xoogaa risaalo yar u sameeyaan oo soomaali ugu qoraan oo fahamsiiyaan in la yidhaahdo war intaan xaafadaan ku qoran oo ciddii xajinayso masaajidkan ka baro deedna warqad certificate wasaaraddu ay tasdiiqiso in la siiyo at least oo qofkii asagoo garanaya xajkii oo buuggiisi yaraana wataa
inuu deedna tago way anfacaysaa asaguna wuu wanaagsan yahay dadka Soomaaliyeed waxa yar ee khidmada ayagaaba iska bixin laakiin waxaan u baahanahay siyaasadda in la hirgeliyo oo aan aynu initiative-kaas la nimaadno oo aanan halkan ku daynin wasaaraddu intay kari kartay sicirka u celi musuqmaasuqa ka ilaali maxaan ku dhahaa transitka ka ilaali de waxaasoo dhan waa wax fiican way wanaagsan tahay caafimaadkooda hala ilaaliyo nadaafadooda hala ilaaliyo cuntada hala ilaaliyo intaba intay maaragtay waa xaq bay u leeyihiin dadka Soomaaliyeed dawladoodu inay waxaas ka shaqeyso laakiin waxaa anigu antabaya inay dhiban tahay dhinaca tadqiifinta iyo dadka Soomaaliyeed inay bartaan arrimaha xajka iyo gaar ahaan axkaamta xajka inay bartaan xajka kaliya ma hada xaj wal umra oo ayadana dee ay dadku aad u tagaan waliba umrada aad ay dadku u tagaan marka culaysadii jiray waxaan u maleeyay dawladda Sacuudiga lafteeda way aragtay iyadaaba iska dadka waaweyn oo da'da oo dhibaatada aad u badan lagu qabo ayaguna qaba oo lana karaynin Soomaalidu markay waaweynaadaan ama qofku wuxuu isu maleyn bahduusan waalidkiis usan xajkaynin inuu ducaysnayn waalidka laftooda u arkay inuusan haduusan wiilkan ama gabadhan xajkayn inuusan baarinimo badan sameeynin ayaa mararka qaarkood ayaa aragtidaas ay qabaan laakiin qofku hadii uu da'na yahay xanuunsan yahay waxaan u baahanahay bal arintaas wasaaradda iyo culimadu ayagana inay dib u eegaan waxaan ku soo gabagabeynayaa shirkadaha shaqeeya waa mahadcelinayna laakiin waxaan u baahanahay sida sheekhu hadda sheegay wasiirka in tartan kale la geliyo waxaan rabnaa tartanku wuxuu keenaa tayado wanaagsanata wuxuu keenaa sicirkoo yaraada ayuu keenaa wuxuu keenayaa malaha kuwa badan oo hadeertan banaanka jooga oo de aan nasiib u helin oo culays badan nagu haya inay wax helaan baaba laga yaabo marka nasiibka iyo de arsaaqda Ilaahay baa qaybiye waxaan qabaa in tartankiina la furo oo hadda la sii furo si aan dhawaan aan loo dhihin de maxaan ku dhahaa waqti lama hayo in haddana la furo si sharaf leh oo xor ah oo sidii nazaahadii leh oo ay ka marxaati kacayaan dadka qiimaha badan ee culimadu ugu horeeyay Soomaaliyeed in loo qabto tartanka oo maxaan ku dhahaa shirkadaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed businesskaas ka shaqeeyay ay ku tartamaan haddii ay طبعا aan dhahno waa la tartamaya wuxuu baa guuleysan doonaa wixii guuleysanay lagu qanco oo dadka Soomaaliyeed adeegaasna intaas ay u qabato ayaan codsanaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin markale waa idin mahadcelinayaa wassalaamu calaykum